حسن محمود ماليشيا aad ka soo ururisay maartay masaajid cali guduud iyo ceeldheer reeriina aad ka soo ururisay leedahay waxaan geynayaa anu waxaan ahay odayaasha maartay daarood oo kablalax baanahay oo wadanka ku shaqada leh waxa weeyaan xasan maxamuudow waxaad u jeedaa daarood doorashadan aad u sacabtumaysa dadka iyo xildhibaanada ku leynaysa aad ku afduubanaysana ama garow waa lagu qaban doonaa ama boosaas hadaa diida sidii lagu doortay iyo sharcigu sidoo ahaa hadaa diido adduunka Soomaali waa qabiil bay isu taqaanaa sida loo kala badan yahay sida loo kala dagaalyahansan waa la yaqaanaa wallahi xamar baanu qabsanaynaa iyo bilaayatullaahi waan dhaartay ninka ba xoog badna waxaanaad meesha ku rursatay iyo waan ognahay inaad oo ahaan jirta caydiid xogayo oo ahaan jirta UNC kamid ahayd oo wali mooryaantii iyo wixii aad waagi wadaadaamisanta waan ognahay waxa weeyaan maanta fiito baanu isticmaalaynaa waxaanu leenahay wax iska celiya Jubbaland baanu leenahay ciidankaana waa inaad qabataan baleeshiyaadka uu ku ururiyay meesha la yiraahdo Raas Kambooni waa inaad qabataan oo aad godoomisaan oo aad wax iska celisaan oo istifaacdaan waxa weeyaan ninka la yiraahdo Xasan Firimbi oo lagu naanayso oo xasan leeyahay xildhibaankaana waanu mahadnaqaynaa iyo ragga wax iska celinaya kuwa hurdo ee meelahan laga doortay ee Puntland iyo laga doortay iyo Jubbaland ninka guriga ku xareystay sida arigii oo kale guriga ku xareystay oo meesha ku haysto leeyahay maalin walba gacanta ii taaga wareer ninkan uma jooga madaxweynenimo iyo doorasho uma jeeday waa nin daarood inuu adoonsado oo maaragtay uu rarta doonaye wax iska celiyo dadkiina wax ku tara oo wadamadiina imaado ninka iskaga imaada mooryaanka meesha oo ku urursaday wada xarakaba hirgelaya marka saqoosh waxa hirgelaya ka Jubbaland baa hirgelaya adduunka Soomaali waa qabiil bay isu taqaanaa sida loo kala badan yahay sida loo kala dagaalyahansan waa la yaqaanaa wallahi xamar baanu qabsanaynaa iyo bilaayatullaahi waan dhaartay wallahi haddaan xasan maxamuud waxa joogday waan ognahay inaad tiri xildhibaan igu dara meesha gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo maartay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee Puntland Jubbaland isiya inaad tiri xildhibaanana igu dara inaad tiri oo laga diiday waanu maqalay waxaad u adeegsatay dawladii qabiilkiina iyo maartay UNC baad u adeegsatay waan ognahay kaaraan inaad ka soo dhagaxti dhigaysay laamay oo aad tirigeeyo hobiyo oo xeebta mariya dadkii kale xoolahoodii iyo dadkoodii inaad wadankaaga ku isticmaalayso waan ognahay waxaan ogeyn male dadku maartay adduunka hadda Facebook iyo wax walba u yaalaan maanta fiito baan isticmaalaynaa waa inaad reer Jubbaland iyo maartay beesha daarood waa inaad xamar qabsataan xamar saasaan idin leeyahay waxay ugu deganeen nin walbo maxay reerkiisa iyo dadkiisa doortay goboladiisu ka taliya macnaha marka in xoog lagu maquuniyane macquul noqon in umada laayo hadii la rawaa gooni umada in la laayo hadii la rawaa gooni laakiin hebel ala soo qabto nin dhan oo baras waxa madaxweyne dawlad oo goboleed ah oo maanta oo la og yahay dastuuri ku soo baxay oo shalay adiga aad u qirtay oo shalay adiga aad taageersanad maanta dantaada ka dhaxweyso la soo qabtay inaad tiraahdo ama la soo xiro waxay ila tahay anigu kulay fikrad ahaanteeda inay qaldan tahay waa tii la yiri Puntland 24 saacad ku baabi'inaysa la yiri way taasay la xiriirtaa 24 saac ku baabi'in intuu Xasan Shaqiir way kuma baabi'in qof iyo codkeedana way qabsatay haddana way qabsan doontaa maamul goboleedyada haduu madaxweynaha hala saa'iro maamul goboleedyada ha soo dhaweeyo haddii macnaha gacmo qabow ha u fidiyo xoog cidna lagu ma qasbi karo maalin cad baa la diiday in xoog la isku qasbo marka waxa waay dadka yaa la qasbin madaxweynayaasha maamul goboleedyada yaa la qasbin ma baantay hal laga keesto hal isu keeno dadku in la kala fogay lama rabo Xasan Sheekh wuxuu ku soo baxay Soomaali heshiisa oo dunida heshiis la maantana waxay marayso waa loo jeedaa Soomaali kala tagtay Soomaali dagaalsan dunidana la dagaalsan bay maraysaa marka waxaan idin leeyahay war heede baashaan dib ha loo fiiriyo dadkii wax maamuli jiray loo dhiibo maamulka waa loogu horeeyay waana la isku dhim waana la tanasuli jiray farmaajo waa ognahay intuu tanasulay waa ognahay marka dad baa maamulkan wadi jiray oo yaqaani inuu dadkii yaqaan loo dhiibo waa ognahay qabuurihii buu soo saaray dadkii tahriibay oo dalka dhibaatadiisa ka tagay buu yiraahdo la soo celiyo qabiil iyo musuqmaasuq buu keenay ummadii buu kala kaxeeyay midnimada dalka waa ku ciyaaray inuu marka gudoomiye maxkamadda dalka Soomaaliya federaalka ku amro warqad qor lagu soo xirayo Axmed Madoobe lagu xirayo cadaalad darro yahay sharci ahaanna ma ahay mid macnaha macquul ma ahay Axmed Madoobe waa maamul goboleed weey waxa ridi kara oo ka hor imaan kara waa maamulkiisa shacabkiisa weey haddii shacabkii iyo maamulkiisa wataan Jubbaland
in federaalku gacan geliyo oo yidhaahdo annagaa kala kaxayna horta waa khalad warqaddaasi khalad bay ahayd warqadda kaleoo looga jawaabay oo jubbaland ka soo baxayana waa khalad weeye halkaa waxaa ka muuqata inaan cadaaladi jirin oo ninka maxkamadda joogaayo amarka madaxweynaha ka sarreeya uu qaadanayo baa halkaa ka muuqata waxaan intaa ku darayaa madaxweynaha soomaaliya lama odhan karo xasan sheekh maxamuud markii sharciyan la fiirsho dhibaatada uu geysanayo waa dhibaato aan la soo koobi karin weeye waa burbur aan la koobi karin weeye ilaa iyo qabuurihii buu tegey if iyo aakhiraba dacaw waa laga yahay waxaan beesha caalamka ugu baaqayaa inaysan madaxweyne xasan sheekh aan la odhan ee la yidhaahdo waa burcad aan madaxweyne istaahilin laakiin ninka xasan sheekh soomaaliyuu sheegtaa inuu mas-uul ka yahay guud ahaan laakiin xaqiiqadii markii loo eego wakhtigii hore ama berigii hore meesha waxayn jiray iyo hadda waa isku mid ninkan wuxuu qabaa colaad iyo nacayb iyo nacayb weliba aad u fog oo qabiil oo uu ku aaminsan yahay fikrado laga soo abaabulay berigii ay ku shireen isaga iyo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa muuse juudaan iyo ninkii kale ee halkaa jabuuti joogay fekerkaasoo ahaa in qabiillo la cidhib tiro dhulkeedana la qaato buu aaminsan yahay ninkaa ummadda soomaaliyeed madaxweyne uma aha ummad soomaaliyeed uu ninkaasu madaxweyne u yahay oo soomaaliya ogaada ma jirto wakhtigiisina waa dhammaaday haddana ceeb buu faraha saaray oo si qabiilii ugu duulay gobollo iyo degmooyin iyo dhul ninkaa ninkaa yaan loo aqoonsan horta madaxweynaha ma ahee yaan la aaminin inuu soomaali ma metelo soomaali ninkaas waa nin qabiila wuuna caddaystay waa reer qabiila uu madax u yahay waana qabiilka urureye hadda ku duulay meesha laga kismaayo waxaan rabaa in aragtida ay ka dhibto arrinta ka dhex taagan axmed islaan axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe waa ka saxan yahay axmed madoobe waa saxan yahay xasan sheekh maxamuud wuxuu wado waa wax khaldan xasan sheekh ololaha wuxuu ku soo galay soomaalo nabada caalamkana nabad lah wixii waa laga baxay wuu ka baxay isdabagadis baa dhacay soomaaliya waa gubanaysaa caalamkan heshiis lama aha xasan sheekh maxamuud wuxuu wado waa wax xeerka soomaaliya khilaafsan oo garab marsan wuxuuna ka shaqaynayaa waa isku dirka iyo iska horkeenka bulshada soomaaliyeed iyo kala geynta wuxuuna ahaa waxaa loo doortay inuu mas-uul noqdo hogaamiyo dadka bulshada ma ahayn inuu la gorgortamo la ficiltamo hadda meesha waxaa ka socdaa sidii laba qof oo xanaan ah inay u ficiltamayaan habba warqado soo saarayaan waxaas waa wax khaldan ma aha heerka madaxweyne iyo mas-uulnimada iyo meesha joogo wax u qalma maaha